تسجيلات أمناء هواء تقدم ولأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم ويمد يدا كتاب يمد من عند الله حق يمد كتاب كان يهي مصدق النصر مينية لما يعني كان معهم أكثر ويو هيستان التوراة كتاب مينية التوراة وحق له والتوراة وكان يري القرآن وحكم له كتاب الله يهود كتاب التوراة بشيغانيه النصارى إنجيل بشيغانيه لولا كتاب إلهي وحشيغانيه في سود الكيمة لولا الله بسود الكيمة وأنزل التوراة والإنجيل بالله الله بسود الكيمة التوراة والإنجيل مركز التوراة والإنجيل كأيو أيهيين وكتابه وقت بدن مارتي سوتشرين أو مركز قد انحرافين عن كتابين مركز يقلعين وحياة بدن أي صدر درين حنا كمارتي قايين وتأويل قلب أي أسميين كتاب في مركز النقطة كتاب بعدي يسير أي تجران بالنقطة كتاب درجة واحد ويكتاب الوهن ونسرين بالنقطة يجي واللغة يريمر ولا مسك مركز وحياة كتاب يسير هذا إلى هذا إلى واحد كتاب فيه وحلو قيدنا يصلح قيود وح معناه إني حقه الأجهة إلهي شيء iyo waxyaabo maaragtay in baadil yihiin la ogyahay Allah sheegay sida Ciise ibn Allah markii leeyahay oo kale Uzair ibn Allah iyo waxyaabahaas oo dhan in baadil yihiin baa la ogyahay Quraanka radiyay oo yiri waa baad waxyaabana waa wax Quraanka aamusay iyo la sheegayaan oo sunna ahaan kara been ahaan kara taas waxa la yiraahdaa rumaynina hana beenin marka kitaabka Allah markii Quraanka ah oo musaddiqun rumaynay lima macahum kan ay hayaan oo macooda وكانوا هرينا ay ahaayeen iyagu min qablo yastafsixuna kuwa fasxi dalba Allah inuu ku kala saaro oo ku kala furo iyaga iyo xalaladina furo ku fiiyay horay u dalbi jireen oo jaaladan macnaha wasaniyinta oo asnaamta caawiyeysay oo carabta ahaa oo ay la degi jireen oo Aws iyo Khazraj ahaa magaalada Madiina ay deegaanka ahaayeen labada qabiil ka badnaa macnaha Yahuud markii Yahuuda la dulmiyo maadaama laga badan yahay dadkuna ay jaahiliin yihiin oo dulmi iyo xadgudub aan laga waayay markii la dulmiyo dadka Yahuuda waxay oran jireen waa iska safraynaayoo waxa soo dhow waqtigii Allah soo diray la rasuulkii akhirka ahaa nabigii dambe markaas nabiga saacina markaa in leen doona jaalada markaas loo balan qaaday in leen doono oo Ilaahay duleen doono sidii reer caad bay in leen doonaa bay oran hadalkaas marka carabta muslimiinta ana hadalkaas waa ku faafay waana maqli jireen waa arrintii keentay in iyagu islaamka ku dirdegaan waxa dhacday in carabtii islaamka qaateen yahuudina islaamka diideen lixdii wiil oo horeeyay rasuulka dacwada ugu yaray oo reer Madiina ahaa magaalada Makka intii yimaadeen xilliga xajkii sanadii 19 waxa dhacday lixdii mar Allah marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo quraanka u akhriyay وإنتو الله اللي يرين ياتين وحيرهن خزرج كثير من موالي اليهود مقول اليهود الذي جنبك هذا يرين في الصلاة يلسون ويكلموا مفرسان كان بين الله اللي بقاس فرسان مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يري أو قرآن وشرح وأخي قرآن وحال يرتبط الروح النوصية لواء السلسلة كذا وحيرهن والله يرين هو النبي اليهود نقول أرين أيش اليهود يسوهر مرة كذا في مركب يجي أو إسلامي السنة الذي تمنع به مدين هدنا إيه ولا بيت وقفة ومركب dad islaamana ka shaqeeyay oo islaamka qaat sanadii 3 hadana yimaadeen iyo 70 iyo xogaa ah oo dad badan oo muslimiin ka shaqeeyay macallin waxa lagu daray sanadii 2 Mus'ab bin Umayr iyo Abdullah ibn Maktum baa lagu daray iyaga marka aad islaamka looga shaqeeyay magaalada islaamka wuxuu ku soo waqti yar ayuu aad ugu faafay 13 marka la sheegay dadka rumeeyay dhan waxa weeye 100 meelahaas bay soo dhawaayeen ma ragga marka la sheegay Madiina waxa weeye 2 sano gudahood waxa magaaladii oo dhan badankeed guri aan islaamka gelin ma lahayn Mus'ab bin Umayr markii isagay oo dadkii diinta u yeeray marka sidaas marka qabiilada carabtii oo carabta waxa la isaas uga aqoon hornaayeen yahuuda ka maqal jireen in nabi la soo dirayo waqtigiisa la dhow yahay ka maqal jireen qaar baa xataa u soo haajiray Madiina iyo rajaynaya carabta in waqtiga in laga soo saaray meelaha nabi oo ninba oran jiray maar maxad u malaynaysaa in laga soo saaray ardul khamr wal khamir dhulkii khamrada iyo khamirka laga helayay oo isoo bixiyay ardul buusi wal bii dhulka baahida iyo gaashada ma isoo bixiyay dib wax kale ma ahana waxaan ku hayaa nabi waqtigiisa la gaaray ayaan sababtay tasriixda ku hayaa baro laakiin waxay maleynayeen bal nabiga in laga soo dirayo yahuud in laga soo dirayo markii nabiga laga soo diray Quraysh oo iyagii laftigeeda lagu yaray nabiga inay raacaan waxa way waa ku gaaloobeen iyo og waxa maartay awal ay sheegi jireen oo kitaabku u yahay markii Ilaahay wuxuu yiri wakaano waxay ahaayeen bal min qabl hore yastafixuna ku fatxa ku dalba kala furid oo marka dadku isqabsadaan isku yimaadaan oo yani dibaan oo in Ilaahay kala xaliyo maarta la baryayo waxa la yiraahdaa rabbana ftah ilaahuna kala saar ftah baynana ilaahuna kala saar nabiyaashu waxay oran jireen rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqq ilaahu annahu qawmkayga xaq noo kala saar marka iyaguna waxa la yiraahdaa inuu yastafixuun waxay fatح ku weydiin jireen
نبي جاهز إله نبي النصر قالوا أن كلا بحنا يقولون كذا على الذين كفروا فلما دورتي جاءهم ويمد أو هم يمد ما عرفوا كي جرنا المسلم والنبي جاها كفروا به وهو كفريان بس نبي جواد ديانا خميان ما رح نمروا بأدوه بمارك عليه إله يحكي إسلام وحيا والسبب أدوه يسمع عبد أدوه في الغالي يمشي يكون سين يمشي يوحى اللي أي حريص كل غضيان وكم من كذا نبي جواد ديانا راحة واللعنة الله لعنة الله أهاته على دي صراحة هنا مشتروا واحد كل شيء به أنفسهم نفسه بي ويهود على الله لا يمرك النبي على الله دينيين وادينه دورتين فواحد اللي يروح عباس هذا ما اشتروا يعني الشيء أي اشتروا به أي فوقتين أنفسهم نفسه بي ونفسه بي إنه يجيبون وضيعين الدنيا رقعتين ونفسه بين المؤمنين بلغة عليه قفت هذه مر نار الله مارسي وقالوا يشوف كافرنه مارسي إلهي إليه ماذا والنار اللي ورده وقف خساري مار إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إليه خاسر واحد ويا اللي يركون نفسه يلكون خسارة مع ليس قيامة مركب قفت كافر كواحد ويا نفسه سوى خسارة حيني نفسه واحد لوها لقاها هي لو عذاب يا مار عذاب يقوى عرفه ويحي قال لي معها ودون كسر شقي ونار اللي ورده مركب نفسه في واحد غفصة واطي يعني معه مثل مرة صدق الشيء الدنيا يربرير ونولانية ويحي جارها يعني حتى وصل جرانين وقتها حتى الله قبل يشنوين الدون سنة وفقت معناه نفسي في وضع نفسي في نواضع يعني النار بمارك فراء وقال مركب واحد باس الهبيبة اللي يرشيجة اشتروا بها يفوقتين أنفسهم نفسه في إيديين أن يكفروا بما أنزل الله شيئا أنا وحا ويا باس الهبي وكفرين تأيكو كفرين إن يكو كفرين بما أنزل الله كان الله سودك فيه بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بغي وحل إلى ذاكر ترهد يظلم ذا مركب لا توحل لك ذا وحسدك حسد كله بغي وكله يظلم وكله مركب حسد هيان وحويا اللي يركب أي كفرين هيان أما أي حسد هيان إلهي إنه كسد في فضله على من يشاء من عباده عدد دون أدنى السنة مركب قدر في إلهي مركب معارك فيه ولك فيه إلهي ساء أدومي سورنا أوري ساء قرنا يعد دورنا ينتشال ودورنا النبي النمذنا معها معناها كيفية جارة استملها وواحد لو النبي النبذ اللي ما جاره الدجال عبادة بدل اللي ما جاره وأهل دورة إلهي قف ودورتي إلهي تربية سوي وإلهي قف وتربية وقصر قال إنه الرسول في سين الغضب وفرين في بنادم جارسين لها وقالوا وجارسيه قف إلهي ودياريه معناها رسالة النبي النبذ ما قف واحد لو جاره الدجال وحوي هذا إيمان في يمارس تقوى الصلاح أي واحد لو جاره يقف ضد الدجال وكتاب إلهي شيء جادني وضبط أوقات فإذا إلهي هم يعني وحن بديه إنه لو أدون صالح إنه مغضوب ونعكسن صبنا إنه مغضوب وإلهي نقول نحرج لكن لقمية وهو تكسب الدجال إنه قفه والنبي النغضوب معنا فهلا مرجين النبي النبي مركب هو اختصاصي ووحده ورشاء إلهي عد بخاطيرية مركب أدومنا الله يسيع ولا أبو سيسيعنا كراني مركب دي إلهي أدومين في متكم يوضح قبيلة الساكة دورتين ما أهن مركب إنه كسب ريارين كاما قف أدومنا الله وكلا ويعني أرنتك إلهي وسمي وقدرت الله ويعني رهالة النقطة يهود مركب waxa la taasi ku fikreen marka waa gaalnimo xun marka ay sameeyeen kaligoodna ma ahana mushrikiinta quraysh waa oran jireen iyaguna waxay oran jireen ninkan macnaha nabiga kaleey salaatu salaam afkiisa jirba markii dacwada markay u bilaabay waxaana joogay odayaalka waaweyn oo isku fikray iyo joogay oo caan oo niman maal badan baa joogay oo magacooda jirida arabka laga yaqaan kaadi waxay oran jireen waxa fiican lahayd in risaaladan loo dhiibo markii lawla unzila hada alqur'aan ala rajulin min alqaryatayn cadin lin markii labada magaalo kamid ah oo ama Taif ama Quraysh Makka لكن من أنا إلى صار بريشين إلهي وحي هم يقسمون رحمة ربك مياه قيدين يلي نحريص الله آيات إلهي وحي الله أعلم حيث يجعل رسالته الله بأوصل من بالي رسالة اللي يخرجها يعيده لمن الله أعلم مركز يهود حسب كاسبة قليلة إلهي ومارك حسبيان وأي كسب رهيان إن إلهي كسب بسيوه فضل جيسي والنبي النبي وخاصي ولو مارك أدورته على من يشاء من عباده عبد دونه كم الأدمين فباءوا وحي الله سين بغضب عاري لما غضبين باليل على غضب عارك على كرساري وهري ولو عرضي وانت انه محمد صدر انت قال لنا اسمين وعهد الهي الشريين الله يوشر بيلون واحبارتي وربانتي ارباب كدسين ايدي الهي كتجن وعزير ايرادين ويل في الله وليجي دحوا اي بنستين وددك اي ربك عرسين واخذهم الربا وقدمه عنه بالهي الربا قاعدين شرين بالهي وانا لا غير ايوه هذا كبان ابو مريم وبسان عظيم كشيء ومارس واحد على شيء يصير لا أدخل مريم في شيء وهذا كفار عيسى دين يجري إنسان يا دين كفار أنت قال لي وصل إلهي وعرضي يوسفني مركي نوم محمد الدينيين هذانا واحد الله سين بإلهي بغضب على غضب عرب خرسارا عربي هراء
وللكافرين كفارتنا وحا أصبنا ذلك عذاب مهين أو إهانين يدلين أيلين عذاب كجهنم وسجلب إلهي ودلين ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخذيته ربي وقدي جلسي النار ودلسي وهو جسدا وإذا قيل هدي اللي هذا اللهم إذا اللي هذا آمنوا رمية بما أنزل الله كان الله سودتي والقرآن في الرمية هدي اللي هذا يعني يهودا ولا كتابك هدي اللي هذا رمية كان الله سودتي قالوا حيليهم نؤمن وحن رمينا بما أنزل علينا كان أنا نفسه بشيء أو توراة أما رمينا ويكفرون وانا كفرنا هيان بما وراءه وحي كدن به وبهاش ساعة وهو وحنا ويكائف كفرها هيان الحق وحق يخرون وي مصدقا ورمينية كتاب رمينية ولما معهم كلمة معضى مركا وحا لغوها يسا هذا كان حتى إليه وأحكام بالرمين هذا يدين كفرية محايا لهدي كفر مسيحين كان يوفق شيء محمد الله صدر هاي ووقت على صدر هاي وكفري في ساس هاي وذكر رعاية سيدا يجين أخلاق السيدات هاي tilmaamihiisa iyo dhan baa la sheegay nabiyul akhirna way yeelay ilaahay bana ku baahirinaya islaamkii baa leeyahay marka nabiga ay tilmaamihiisa haysteen iyagu dadka ugu bishaareynayeen oo lahayn waa la gaaray waqti markii nabiga yimid waxa weeye markii nabiga doonayeen tooraad masaasi ku doonayeen oo tooraad marka waa rumaysanay waa ka been marka nu'minu bima unzila alayna markii leeyihiin waa been oo tooraadka ay ka sheeganayaan maana waa ogyihiin inay tooraad ka tagaan ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل waxaa tiraahdaa falima taqtuluuna maxaad u dilayseen bal anbiyaa allah nabiyaasha allah maxaa u dilayseen من قبل هري maxaa u disheen in kuntum mu'miniin hadda mu'miniintiin oo tawraad rumaysantiin tawraad ma aha kitaab allah oo istiqaamo ee toosan amray oo diinta xarimaysa marka idinku maxaa anbiyada ilaahay hanuunka la soo diray oo xaq sheegay maxaa u dilayseen halka waxa lagu musinayaa marka kitaabkooda inuu yahay kitaab iska sheegay ama kitaab sheegay inuu yahay هذا ضد كشيء مركا قرآن أو راعي وضدي أهل الكتاب راعي قرآن في مصحف في واحد ورث مجنون كتاب الله إليه نحن ليه نحن أهل القرآن بعنا القرآن كرمي سنة إليه رومين تمرك مجرنا يا رومين وحليرة مجرنا يا كتاب كرمي سنة إليه هذا كتاب في ضد كل ما يقلب إليه وهي هذا كتاب كيرا كل يوم راعي وحن غنية شاد غريب ونغنية والجونية وواحد ولا رد الرياء واحد كتاب وثمانية waxa adduunka meel kasta dadka islaamka sheeganaya meel waxa lagu laayaa waxa way dadka muslimiinta runta waa lagu laayaa meel baa lagu ogaaranaya wax kale ma aha waxa way kitaabkii raaceen ummadan markii waxay raacday ummadii hore oo ahlu kitaabka ah oo iyaga oranay tawraad barrumaysan hadana tawraadkii wuxuu ku yaalay ee diiday oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay raacaan diiday oo dhexdooda dhiigga inay tujiyaan diidahay isdilay markii kuwan waa sidoo kale quraanka waa rumaysan leeyahay laakiin quraankii markii la yiraahdo kan quraanka waxaanu amrayana lagama yaabo inay yeelaan shirkiga ugu weynaayo quraanku waxa uu la dagaalamayo arrinta ugu weyn waa shirkiga way ku dhex jiraan kitaabka intaas oo meel baa leeyahay Allah kaliya kitaabkiisa raaca oo tabiicu ma unzila ilaykum min rabbikum raaca baa leeyahay yani waxa ilaahay leeyahay dhisay nabiga ilayhi wa rumaysanay waxa lagu yiri thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'hu alladhina la ya'lamun shari'ada kaliya raaca waa raacin baa nabiga leeyahay iyana shari'ada lagu maartay yani kari karo oo diidayaan hawadiga raacay marka sida ummadda waxa la ku faahfaahinaya waxa way ummadan waa loo ekaanaya waa loo ekaan oo nabinimada maarifnaa Maxamed sallallahu alayhi wasallam ay daliil u tahay arrinta dad kitaabka ilaahayna haysta oo sheeganaya oo hadana si yahuudi iyo kitaabka wuxuu ku yaalay la dagaalamay kitaabkina waa sheeganaya waa haysta marka hadii aad waxa leeyahay muuminiintiin oo tawraad ah rumaysnayeen maxad nabiyaasha ilaahay u leeyahay marka rumayntiin waa zacmi iyo been weyn mana inkastoo kitaabka aad sheegtaan oo aad qoraysaan oo aad carruurta yaranta dugsiga ku baraysaan haddana waxa weeye kitaabka ilaahay ma rumaysnayn maxaa yeelay wixii kitaabka yaalay baa Allah keenay la dagaalamay walaqad ja'akum habibi ja'akum wa ayyub Musa wa ayyub bil bayyinati hujayn al abd ayat al abd yimid oo lagu garanayo inuu rasuul Allah yahay ayadka marka Musa la siiyay waxa ugu weynaa u shiiway oo usha markuu tuurana aad sida noqonaysa markuu soo qaadana sidii hore noqonaysa iyo gacantii waxa weeye istiinisay oo markuu sheeg ku celiyana waxa weeye noqonaysa martida rasuul noqonaysa ayad waxay ahaayeen mucjizaad oo lagu garanayo inuu rasuul Allah yahay waxa kale ayadka kamid ahaa markii gaaladii markay reer Fircoon ay beeniyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu keenay maas ciqaab weyn buu keenay markay ciqaabtii maada waxay yiraahdaan Muuse Allah noo bar anaga qaaday markii ilaahay ka qaado ayay hadana gaalnimadii meesha ku jireen oo Roomeenina ay oran jireen ee waxaan la qaado markii wixii laga qaaday meesha ku noqotay kaas ciqaabta la dareemay saasa marka ciqaabo badan la isugu xiriiriyay mar walbana Muuse uu iimaanayay Allah noo bari mar Allah markuu bariyana wixii baa laga fiiday waxa muuqanaysa markii suu Allah ugu xiran yahay baa muuqanaysa فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات arrimaha suuy ma smaa طوفان baa loo keenay beerihi oo dhan biyaha qarqay markaas waxa weeye Muuse Ilaahay noo bariyeen hadii la ka qaado rumeynina
markii laga qaaday bay ku gaaloobeen oo markaa rumeyn waayeen markaasaa dhulkii aad ugu baxay beerihii markaasaa beerihii waxaa ilaahay u keenay markaa bahal galay oo badarkii ka baabi'iyey kaas yiraahdeen allah noo bari markaa inuu naga qaado marka ayax baa loo keenay ayaxii marka ilaahay noo bari inuu naga qaado mar walba saas yahay mar rahbaa markaa lagu imtixaamay oo meel walba markaa rihiba guriga ka buxsamay weel walba ka buxsamay qofkii xataa afka la qaaday waxa la afka galo sidaas mar alla markii yiraahdeen muuse alla noo barina oo alla bariyana waa laga qaaday arrimahaas marka waxay ahayn aayaad bayinada muuse la siiyey oo lagu ayidahay inuu nabi allah yahay lagu garanay waxaa kaloo ka mid ahaa badii loo kala seexay oo badii laba maaragtay laga dhigay qaybood oo markaas waddo looga dhexdooda maaragtay looga bixiyey oo markaa isagii qoomkiisa ay mareen fircoon iyana lagu halaagay aayaadkay ka mid ahay waxaa kaloo aayaad ka mid ah soo aragnay ninkii la dilay oo markaas saca markuu yiri hilibkiisa lagu dhufto ninkii soo noolaaday oo hadlay oo markaas uu yiri yaa ku dilay yiri hebel baa dilay marka muuse aayaad badan baa ilaahay siiyey oo lagu garanayo in uu yahay haddana isagoo nabiga dhex joogay ثم بعدنا اتخذتم واحد يلاتين على العجل الدين وصمتين بل نبي المعجزين كيسو أي ظاهر كيين ومقدان أو إذن لكوه أياد واحد عابدين بالي العجل بعابدين والشرك الأكبر باكمتين من بعده النبي جداشي معنا يمكن النبي كم مغناية كسار فيه حتى راعي له إذن يفوقوا مغناية أياد دي عابدين بالي وأنتم ظالمون إذن فآبا ظالمين أو كافرين أو كفر يا الله marka in macnaha iyaga kuwa markaan la soo iyagu ma ay sameeyeen kaalmadan oo dilaacada macnaha kuwan Maxamed la soo sallallahu alayhi wasallam oo leeyahay Maxamed diiday kuwa dilaacada iyaga ma ahayn laakiin waxa weeye waa salafkooda hore way dadkooda hore oo musallifiin oo asxaabu Muusa dadkii ahaa qaar kamid ah way kuwa dilaacada ma marka khilaafkiina kitaabka la khilaafaya soo bilaaban maanta ma bilaaban way macnaheedu waxa weeye taariikhdiina oo dhan badalo Israa'iil hadaa tiin taariikhdiina oo dhan waa taariikh oo maaragtay canaad iyo madaxadeed weey oo weligiin dumarka khilaaful kitaabka ku jirteen muuse intuu noolaa in la joogay baadida abadeen gaalnimadii u weyneyd maaragtay oo dadku looga yeeri jiray ayaa ku dhacday kadibna waxa weey intaas waxa soo sameeyeen oo weligiin qarni walba waxa jiray waxyaabo waaweyn kabayra sameeyeen iyo dad fiican jiray marka toosnaantan iyo amaanidana laga reebayaa amaanayaan leeyihiin anagu waxaan nahay ahlul ilm shacbullaahi al-mukhtaar baan nahay shacbi ilaahay doortay baan nahay nahnu abnaullaahi wa ahibbaahu baan nahay jannada maarka anaga kaliya iskale hadii la cadaabana maalmo kasta la cadaabaya hadallada ay oran jireen hadalladaas baa marka la baadiyeenaya waxa la filayaa inay ummad xumaan badan la inay xumaantoodana mar hore soo bilaabatay haddana maaragtay asaaintii meesha u dambeysay oo nabigii la yiri raaca oo kitaabkiina baa maaragtay lagu nasakh lahaa oo kitaabka quraanka uu leeyahay lagu nasakh lahaa kitaabka badalnay wa akhadna mithaqakum waqti akhadna an qabanay mithaqakum ballantiina ahdiina an qaadnay ورفعنا عن قادني ذلك فوقكم كرسينا الدور بورتي دور عن قادني وكرسينا كاني قادنا waxay aad baliri markii ilaahay staff u keenay oo laga dalbay mar staff inay raacaan oo ballan qaadan ballantii diiyeen markaa boortii la soo rutiyay korkooda la keenay waxay u maleeyeen boortii inay soo dhacay timaan weedna taqnal jabala fawqahum kaannahu dullatun boortii waxa la madaabay inay tahay dulla daruur harinayso kale korkooda ah kaas waxa la yiri khuduu ma aatinakum قاتل لي ما أتيناكم كان عن يسلني بإلهي واذكروا ما فيه فصوص لي ما فيه كتاب كان واحد كل حكرة يعني لعلكم تتقون تسألوا يلما مركح ملايين وظنوا أنه واقع بإن بورت صدعت ملايين هذا مركح هذا الله حسينها يا إلهي وسير وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وحن قارني بالي تركي النبور في طور ومركح ملايين صدعت وإلهينا لكن ووحل يرفضوا قاتل ما أتيناكم كان عن يسلني بقوة الفوق قاتل واسمعوا أو مغلى أمرك الله يعني إلهي وحياه يوسف من أمر مغلى ذلك مركب بقوة كنت أنا وحوي حلوت إلى كتاب إلهي مركب قوتها الوقعة سوريا الوقعة مثل إلهي أكثر واجب كله وإن واجب منه الوقعة مثل إلهي وحسن إنه كبائر ومحرمات ويومهن إن محرمات لا أعرف مثل إلهي بنان كبر نيوم ولا حكب وحسن لا أسويها لما ولا يحكي عليه أسوس البيسيد أو وش حتى ملاحة كوعها يطبنا أنا هذا حرام ويعرف معه هذا تحليل وتحريم مرة نقول هذي ولا تقولوا لما تشوف الكل تسوي هذا حلال وهذا حرام هذه هنا لي كان حلال كان حرام يجيكم كل سرنا يا الله وحوي إلهي وحوي حلالي حلالي وش إلهي حرمنا حرمه ويما الله أقدم بي أرنكاس هذا مرة واحد كتاب فيه الوقعتي بقوة واسمعوا أو مغلب عليه قالوا وحي إلهي سمعنا وان مغلي وأفكي في رجال سمعنا بالي ومغلنا وايه هي رجالنا ما دام بورت كبقى يعني كسر عظم وعصينا نواجي رجال بالي لكن أفكي ما أوران وحكي رجال فعل سليم سمعنا وعصينا يهود النظام سوي لغن كوساس هذا لي أفكنا وحي كلها ين ومغلنا إفتاك وان قادنا
dhaqankooduna wuxuu leeyahay casayna diidna ugu leeyahay dhaqan xayir kuma dhaqmayaan baa laga wada raaci maayaan marka waa arrin khatar ah weeye dadku markii inxiraafaan oo allah ay ka baqeen waa sidaas mar nadari ahaan markii la yiraahdo kitaabka ilaahay soo xaq maaha soo tooraad xaq maaha soo ilaahay saas ma oran haabili laakiin dhaqankoodii waa ka tiriyayaan waxay leeyihiin annagu shacab ilaahay baan nahay mukhtaar oo waan loo dhaafi doonaa sayughfaru lana bi rusul waana loo asturi doonaa ilaahay waa nacsin doonaa hadduna cadaabana 40 bari kama badanaysa cadaabkaas rusul marka samicna waan maqalnay waa casina waan casinay ilaahay marka muuminiinta wuxuu ku yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dadka rumeeyay waxa lagu yiri yaa ayyuhalladhina aamanu atii'u allaha wa rasuulahu wa la tawallu anhum wa antum tasma'una wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un hanqonina yiri dadka yiri samicna waan maqalnay oo waanada iyo amarada ilaahay oo naloo sheegay waan maqalnay iyo aan maqlayn macnaha iyo aan doonayn inay ku dhaqmaan haddana waan yeelnay calaamadaha nifaaqana waxaa ka mid ah qofku waxaan qalbiga ku jirin afka sheego yaquluuna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim billahi waxaan qalbiga ku jirin afka sheegaya marka ballantii markii buurta la kor keenay oo la yiri kitaabka Allah xoog ku qaata oo maqla wixii jawaabtooda ahayd samicna waan maqalnay waa casaynaasna waxay ahayd ficil fadali wa ishrubu waxa la casiyay fi qulubihim qalbiyadooda waxa la dhexdeeda waxa la casiyay al-ijla yani xubul ijli shacaylka dibiga baa la casiyay dibiga aad bay u jeclaadeen markii dibiga loogu yeeray inay caabudaan waxa la yiri aad bay u jeclaadeen oo aad bay waxa la yiri u ajiibeen oo mufassiriinta qaar ba waxay yiraahdaan waxa kan hadda dadku yaqaaniin dadkan waxa xareynayaan awaashal booyan waxa soo iyaga bilaaway la yiraahdaa oo dibiga markay arkeen ee ku hareeraha inta kiistaayeen waxa la yiri waxay iska dhigeen wax salbaysan oo kale ma marka waxa la yiri dibigaas macnaha qalbigooda la cabsiyay jacaylka u qabeen oo ishribo waxa la cabsiyay fi qulubihim qulubtooda dhexdeeda waxa la cabsiyay al-ijla yani dibiga waxa loo jeedaa muraad waxa xubba al-ijli baa leeyahay jacaylka dibiga weey bikufrihim بسبب كفرهم كان لماذا يوعي سميين الله دي يو إيمان لهان لهايين وهرأي وطوصنايين إلهي سبحانه وتعالى عدوميس وكسر فيها وحرم وإلهي وان نبعي فيها قال لماذا يخص الإحسان كمؤمنين هديين إلهي بوحى لي وكره إليكم الكفر والفسوق والإحسان الله بعدين نبعي فيه قال لماذا يفاسق لماذا عاصي لماذا إذا مركم محل وتعلي فيه قال لماذا فحوي هرأي وقالوا ذين ويما قال لماذا وقرصوني مركم قال لماذا وقرصوني بصوة ظاهر لكن هذا إيمان حقيقة لهان لهايين إلهي وحنا نبعيشين لها قال لماذا يمار في دنبي ورنب نبعيشين قل وحا ترى بئس وحا باس لها ويحرم علي ما يأمركم كانوا ين أمرها يوقيه إساء إيمانكم إيمانكم ين أمرها إن كنتم مؤمنين حداد فيها مؤمنين كتنين وحا بياب لبالي وحا باس لبالي وحا إيمانكم ين أمرها ومعناها مؤمنين وانا ديننا وعابينا وشرك أكبر واسميننا مؤمنين وانا إيمانك الناس وحا ين أمرها يا وحا لي باس لها إيمان معها لكن إذا أفكح كتير لين إن شعبك الله دورتي oo ahlul iimaanka ah oo ahlul kitaabka ah ee sheeganaya idina waa sida arrintii hore kale kuwii hadda iyaga dibda caabiyay kuwa marka la hadlaayo ma ahan laakiin in khilaafka kitaabku caadadina ahaa loo sheegayaa maanta inaan bilaabayn weligiin ba caadadina ay ahayd kitaabka ilaahay inay diidaan oo khilaafsan oo nidaasha amarka ilaahay khilaafsan qul waxa tiraadaa in kaanat haday ahaatiin lakum idin ahaatay ad-daarul aakhiratu daartu dambe inda Allaahi Allah akti haday daartu dambe ahaatay baa khaalifatan mid idin khaalif ah oo idin gaar ah من دون الناس ضدك في كلور وضدك لما ينتمهلين ورحمة الله هذا إذن جاركاي دارت دم مركلة توه عدة كلية ليواني هذا إذن كتين وتمنوا الموت تمني ذلك لما شاء إن كنتم هداتين صادقين طور سبيل وتمني كان وحوالي ومباهلة وحلي هذا مركي ضدك أي حق الديدن يا وحلي هذا الله عمبرينه معنا كأننا ما الظالم كاف وحق الديدن أما كأننا بين لغا إلهي إنه هلاقه الله أمبرين مركب وقتي أنا شو كم سؤالين ويقين وسكرين وبقى يا مرة هذا مركب هاي أرين حجين في مرة في النبي هو جين في جعله يسمى هاي يهودا وحليري ما دام مرة في عشان الزاني حفظ كلام في النبي والنبي أهين وبين ومرة فيه الله سبحانه وتعالى كبر يا مرة إنه غلا قلبا إلهي إنه هلاقه أبطيه وبقى يسكت إنسان بمرة فتمنوا الموت لمشي الرجال إن كنتم صادقين أنا وديار بالنا هاي يمكن التمنية كأن مرة المسلم أو ظالم كاه إلهي إنه هلاقه أنبرين كامرك واجب اليهود ذلك waxay yiraahdeen waa isoo dardaarmay marna yeelay markii sababta u diidan baa Ilaahay inoo sheegay wuxuu yiri walan yatamannuhu ma tamanninayaan taaba leeyahay oo dhimashada tamanin maayaan abada weligood bima qaddamat aydihim bisabab ma qaddamat aydihim waxay jariimo soo sameeyeen iyo jab soo sameeyeen bay ogyihiin kitaabka Ilaahay si maartay u khilaafeen bay ogyihiin waxaan kitaab ahayn inay kitaab ku dhigi jireen bay ogyihiin inay dhiig banayseen bay ogyihiin inay shirki sameeyeen bay ogyihiin intaas wax oo xumaana isku ogyihiin darteed waxa la yiri marna yeeli maayaan Allah aan barino Ilaahay ha halaago martay hal tamaniyo dhimasho qolada zaalimka
وظالمين تقوى إلى إنه هلا ومرنا مرة في يلي ميان بلا يعرفها ولن يتمنوه تمنين ميان أبدا بما قدم الأيدين بسبب ما قدم الأيدين والله والله عليم ومن وقال بضن بالظالمين ظالمين إلهي وأبيه أما مباهلة هي لان أم يهين إلهي ظالم كوأبيه غفق قلبان أو خن إلهي مركز وأبيه waxaa jiray qolo kale iyadoo nasaara ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam mar waqti u soo diray magaalada Najraan bay ku yimaadeen nasaara Najraan baa loo yaqaanaa nasaaradii Najraan tirada ka mid tahay in nabigu u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaa nabiga waxay kala doodeen nabigiisa oo iyagu markaa u arkayeen ibnullahi inuu yahay wiil ilaahay inuu yahay markaa waxa way suurada al-imraan ayada kamid ah soo degay ay kamid ahayd in masala ciisa inda allah ciisa masalkiisa waxa weeye allah agti ka masali aadam waa sida aadam oo kale khalaqahu min turabin ciid ba allah ka abuuray aadam ثم قال له كن فيكون مرتبة أهول يرمكاو أهالي عيسى واسيدة وكله وآدم وأبي هو من الله بهدي إلهي أبوري وعلى يابي قالوا لا يابا يا عيسى وهو يدشيما ولو والد متخوض بها عليها مركا أحيثة مثل بها لو يروح لي فمن حاجة فيه وقفل فرد ولا نبي لي عليه الصلاة والسلام من بعد ما جاءك من العلم مركا العلم كل من الكذب إجا أنت عيسى على الضوضة فقل وحا كتر تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم عنو يرنا عروبتين يهوانكي يمارك نفسي اللي انتصبحنا ثم نستهل أنا الله قرنا ذلك وأنا هبارنا مارك فنجعل عنك يلا لعنة الله العنة على عينك هذه الفوق بين الياس على غير مركب مباهلة وعمدها الله قال لقبر يحيى إنه قرار ظالمين كأن إله هلاقه أما مصيبوك فمركب يجوا بعدين دحوة يتكشفين نصارى نجران وحي رانين والله بيرانيك والنبي هدي النبي لما بهلدنا وهلاقي نغفرنا جهر ماي waxay ogolaadeen markii inay jid iibaan oo islaamku u hoggaansanadaan maal fiican laakiin diinta iska haystaan ay macna ogolaadeen wala tajidannahum wa helaysa wa allah yirhum dadka maartay yahuuda inay yihiin ahrasan naasi ala hayat kuwa ugu dadaalka badan oo u jeclaanta badan ala hayaatin in nolol uu ku dul sugnaadaan inay noolaadaan nolosha qaabka saalaha in naftu ku jirto inay yihiin kuwa xariiska oo aad u jecel inay yihiin قال أركي سادلي ولا تجدنهم واحد هلي سادلي إنه يهين أحرص الناس على حياته ودجال كبدان ومارس لحتى عباد بدان نرول إنه هلان ولقد نولادان وش علان تبنا وعيده به هذه من ذو آخرهم يسن وخير رجينا هي معناه نواش الدنيا وحوارك العين قد يشكل العين النبي وحي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وحبس المؤمن وسنة الكافر قال كان واحد وسهي يعني سنة محايل waxa laga wada gaalka shalay u tahay hadii uu adduunkan ka tago wuxuu ogyahay cadaab inuu gudbaayo marka adduunkan baa nicmo iyo raaxo waa qofka muuminka ah oo rajeenaya adduunkan shidiisa iyo fitankiisa inuu ka tagayo oo raxmad ilaahay waasac aan ku ayin inuu gudbaayo hadii adduunkan ka tago ruuxay marka adduunka xabsi uu arkaama hadii marka dhimasho ku timaado waxa weeye ilaahay buu baryayaa wuxuu rajeenayaa marka ilaahay uu nool wanaagsan geeyo gaalka laakiin jannadiisa laga qaadayaa wuxuu ogyahay inuu dhamaato marka adduunka kaliya yaqaana marka يعني واحد لم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إلهي الدنيا كلي كرنيان يجب أن نرفض من كذا من كلها ضد مارس فكان في كنيسة المسلمين تواجد ذنبه وفي ولي مارس آد فوق معنا ما هي لما ركوا واحد ويوحوا يدين كملها تابعين فيه ويوحوا يدين يريدت كهراء وحيا هايين بيريدت لمشروع كان أنا قال لمشروع ونعي النبي وانشره الناس قام حيي معه أدونا نسكتنا أذكرنا فكتوا هروا نكسانا لمشروع إني بودوا بجاهيون إلهي إلا لفظ من بحرية وجاءت يلفظ هروا المحايش بدليل فأوحي يريدتك في أدون كودي أي بابيين بير آخر وجن واعم درين بير الله بركة وحي ربان بير خراب في إني كبران ليس خربان أو ليس عم درين بيران ربان إذن كان وحي أدون كي عم درين بير آخر وجن واخر رسين بير بركة وحنا عيسان إن العمران كبرتان أو ليس نعمة يبرواغان كبرتان أو كبرتان ليس خربان خاصة عيسان بكبير الله بركة حقيقة واسدة معنا ذكر واحد أدون كأسعلي وحي ويالي وواحد تسلوين بأبنه كمان آخر واحد كوري ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا هو الله أشرك لنا وكل من ذلك هو حريص أو أدون فتعلم يود أحدهم وهو سألي هذا لي وسعلان لها أحد سود لو يعمر وهدي العين فسين لها ودأي سلدهرين لها مارس و1000 سنة خصوصا وشر لها في أي مارس سألي هذا لي أحد سود وهو سألي هذا وسعلان لها هذا لي هدي لجارسين لها 1000 سنة خصوصا وإلى خصوصا أدوكا صاروا جليا وإسكربان وما هو منع هذا لي بمزعجه ند مارة تكبر كليسة وكفر ليسة من العذاب كأن يعمر إلا عند فيه وعند داره التي عذاب قبل داد ماي خصوصا هدون ولا بحث وحاول يمروا بي وحا كسبري وسوها يعني وإنسان كوحا يميلوا إلهي وضح سنة مرة ملا إنك كادفا إلى ربك سبحا ثم لاقيه ذا الواحد يورديسا وأنا الله وأنا لكم من هذا لي معه ربي لا حج ويورديسا وأنا لكم من وقت السواسات مارك معه
أبو سكس أبون كان مرة في إلهي وعافية أما سكس الله وعافية وقفل بماله والبوحة السودوانا هي وقتي والله لكل منها وراح يصبح له وقت بن آدم كل السودوانا هي مرة في آخرتي السودوانا هي مرة الله ورسائل لها والسودوانا مرة أدو 1000 سنة الولادنا وحالي معها في مزحته من العذاب حلي كنيسة كبر كنيسة والله اللهنا بصير وربي بصير وهو وله أركية فيما يعملون وحي سمينها يعني إلهي لو غشي كنا يسوى أقبل وبصير وأركها يا وحي صلى ينبل قل وحكر هذا من كان عدوا لجبريل في هذا عدو كدسي لجبريل ملك جبريل عدو كدسي يهود وحي هذين جبريل وعدو اليهود ويهود عدو غريب هذا عمر بن الخطاب وحي كثير هذين صاحبك وحي يا أوكينا كاسي وحي ملك جبريل باوكينا وحي هذين ذاك عدو اليهود كاسي عدو اليهود يهود العريب مرka ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegaya in cidii jibriil cadow ka dhiganay waxa ogaataan baa leeyahay man kaana cadowan li jibriil fa innahu isaw nazalahu wuxuu ku soo dejiyay ala qalbiga ku soo dejiyay quraanka biidnillah idan allah ayuu ku soo dejiyay oo malag wuxuu sameeyaa wixii ilaahay fara oo ilaahay wuxuu yafcaluna ma yu'maru waxay sameeyaan baa leeyahay la faray malaa'iktu waa marka idan allah wuxuu ku soo qaaday ilaahay baa amray inuu qalbiga nabiga alayhi salatu wasallam ku soo dejiyo قرآن كان إلهي وحيري وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن كواسودكين كتمي رب العالم نزل به الروح الأمين بالسو دي بالي وملك جبريل بالسو دي على قلبك قلبها وسود دي بالي لتكون شيء أنغتي من المنذرين فوق دي في اللسان العربي مبين اللسان العربي وعد ولا فهم كرب والقرآن في هذا اللي ولسو دي قل وحكر هذا من كان عدوا لجبريل في أهالي بالي عدو فلسطي لجبريل فإنه يسوي نزله وحسدتي على قلبك هذا بسدتي القرآن بإذن الله إذنك الله وسدتي وملائكة وحسنون هي وحلا أمر سليلي ويفعلون ما يؤمرون القرآن كاسوء مصدقا لما بين يديه يسوي رمينها هي في كهري وتوراة إنجيل وتبدي كهري رمينية وهدى يهنون وبشرى بشارة للمؤمنين مؤمنين وبشارة إياه حال الورياء يهود إلى النبي في رهين عليه الصلاة والسلام يا وحي كوكينا نبي البوح لها ملك وحي كوكينا كاسي وحي جبريل كاسي رهين ذاك عدو اليهود وحكوا له وري عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن سيا في رهين صحيح وحي يا كوكينا وحي جبريل مركز وحي رهين عدو اليهود وأظن ميكائيل أهلا مركز حل شيء هي مركز عدي جبريل عدو كذا ميكائيل نوري كذا يا عدو وياه هاي الملائكة لغوا وأشواف فيهم الضماء الله ومقربين ويا الله سبحانه وتعالى جنود الله وياه قفت مد عدو كذا كل سنة عدو فيه معه من كان عدوا لله وملائكته ورسله في أهذي بالي عدو أهذي ولله الله أهذي وملائكته ملائكة الله ورسله يرسل الله وجبريل وميكال فإن الله لنا عدو فيها ليس سلينا قالوا وغفت الله ملائكته عدو كدسة الله عدو كدسة إلهي عدو بزاف قفت المؤمنين تحت عدو كدسة إلهي بأمارك عدو فؤاد لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بلي عدو الله وايين ما دام الله مؤمنين عدو كدسين الله عدو كدسين يقول لك واحد أمالين الله سبحانه وتعالى إني غالك إياي ومشركين تنسوا بهم وأسلوا نفسينيك سلسة معين لكن ما دام حق النعان وتوحيد النعان يقول أعداء الله بالنغنية ولقد أنزلنا حقيقة وانسودك إليك أبيض وحكوسة آيات بينات على العدو واضحات آيات وما يذكر بها كمرك في آياتها ومد حديث مديده إلا فاسقين كمية قف الله لغفت حق الديدان وحاول مقع صنبه ليه وفاسق خارج عن طاعة الله وعلى الله ملك بحثن بالغنية القرآن كان فرنا واسكم مد وحاول هالآيات دو غفت الديدان سوى القرآن كلهم ديدان ديرا القرآن كان واقبلي إلا كليا ماشا كليا يلي هدو غفت ليه وديدان وحاول خارج عن طاعة الله بالغنية ملك فيه بالغنية أمر الله واسكم مرتبه هذا كل وديدي هذا هل مديدي أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هل يرمر والبوع عهد جلان وبلان قادان ما واحد سبينها هي فريق منهم قحط من يجي قال فصار فيه وسؤال ولهم وسينها يجي حمان توجي أو مر والبوع معناه جلان عاهدوا عهد جلان وبلان قادان عهدا عهد نبذه وحاسبها هي طورية فريق منهم فريق سمده بل أكثرهم بالسدة أكثرهم بالصوت لا يؤمنون من مايان ومؤمنين غن مايان والله وحيد مايان مركب بلن فرصة عام بكوا هايين بلن كيوين هاي أحد كتابك الله سبحانه وتعالى توراة إني قادان هايان واللي يرخذوا ما أتيناكم بقوة يساوي جوا خلافين ويجي ما رتبح الدعاء حلال سنة إلهي ويجي يفترون هاي
ويجي مارس دنا سرتي تميز ديجي عاوي بلنتي انت سكر بكبحان ويجي مارس دبتي معي سرتي أصله لقى حرمي إني سرتي دبتان ودنبينتنا waxa nabigi balanta looga qaaday inay rumeeyaan oo Maxamed ah oo nabiga al-akhir oo sidii ay ugu taalo maartay kitab wayigi beeniyay oo raaci waayay oo markii uu yimid ku kufriyay lama jaahu ma arafu kafaru bihi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam markaba iyagu xadara kufrinimadooda isaga sugan nabiga rumeeyay waayay baa nabiga alayhi salaatu wasalaam markii madiinada wuxuu kula ballamay inay isnabad geliyaan oo magaalada ay dhinacooda ka deganaadaan maadaama meesha ay degan yihiin laakiin talada magaalada nabiga inuu lahaado oo amarka magaalada rasuulka lahaado haddii cid laba dagaalamayo iyo haddii cid lala heshiinayo rasuulka kaliya inuu kasoo fushay sallallahu alayhi wasallam iyagana haddii magaalada soo weeraraan ay wax ka difaacaan ballantaas baa nabiga la galay yahuudda kitaab bayna kala wateen ballantii marka mar walba mid baa jebinaysay sii horreysay dagaalkii Badr kadib bay ballantii jebisay markay ballantii jebisay waa tii magaalada laga saaray oo ay ku baaba'een meel Sham u dhow oo Adraad la yiraahdo qoladii labaadna markii dagaalkii Uhud kadib ay waxay dhaceen nabiga inay dilaan alayhi salaatu wasalaam oo dhagax korkiisa soo ridaan soo dirba hoos fadhiyo markaa iyagana waa tii la weeraray oo laga saaray Khaybar loo bixiyay oo guryahoodii iyo beerahoodii iyaga ay ka tageen oo suurtul xajj baa looga hadlayaa qolada saddexaadna ballantii waxay jebiyeen markii dagaalkii waqti ugu xumaaday jebiyeen dagaalkii Axzaab iyadoo nabiga alayhi salaatu wasalaam gaaladii ay soo bahaysteen oo magaalada soo hareerayay iyaguna ballantii ka baxeen oo gaaladii la saftay markii gaaladii waxba qaadi waayeen magaalada ka laabteen baa maartay waxa la amray in la laayo 700 oo nin baa laga diray maalinta hal nin baa ka baxsaday la yiraahdaa taasoo marka u baabeen marka waxay caan ku ahaayeen waa nabdul uhud sidida ballamada oo ballan furbay maartay calaamad u ahayd yahuud ولما جاءهم مركي يمد رسول يمد لصدري ومن عند الله الله حق لا يصدري رسول قالوا مصدق رومانيا لما معهم كان معوضة رومانيا وكتاب الله إنه هي شيء نبذ وحي تورين بلي فريق كوحكا بدا من الذين أوتوا كتاب الكتاب وأهل العلم هاي كتاب توسي كتاب الله وحي كرهدين وراء ظهورهم كباش لبخوضوا كتورين كأنهم لا يعلمون في إنهم بمارك لا يعلمون سواء أغير ومركز الصدق يوم ما يستوري كتابتي وضوف صدرهدين لكن ما دام يوم آيد إلهي إسكين ذكرين وكل موايين وآيد خلاف كذي حلال سيان waxa lagu sifeeyay marka in istaabka Allah ka tureen waraa dhuhureen dhabarkooda gadaasha ay ka tureen cid walba marka istaabka Ilaahay hadda akhirka oo Quraanka ah oo kitaabka raxta si weyn oo Ilaahay ku tilmaamay muhaymanan calayhi inuu yahay kitaabka hore mid maaragtay qaalib ah oo lagu saxayo oo marjic u ah Quraanka ah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii uu siiyay hadii iyaguna xalaasadaan kitaabka Ilaahay wax ku yaala iyagu og ay ka tagaan sifadaas kala yeelanayaan yahuudi sidii lagu tilmaamo kale ayay noqonayaan يهود كتاب في حكي أخرين رسول الله لصدر هاي وأخيرا وقته في لسوء مركي لصدرنا وحي النغضان بل كأنهم لا يعلمون سواء نبينا في الآيات ده ووحي رهي نبي معها لشيء وحي علينا هينا ومارك ومصالح الدون بإسكاهي مركي هذا ما أنت وحي دفع حلالسيين القرآن كالشيئان هاي إنه رمسين وحي حلالسيين القرآن كائنا لصفة كلن ونرشو ذي القرآن كالوكا شاري ننسي دونها أخصر ننسي دون جربها صرتو أهدكتو وحوي لكن كتابك إنه مرجع إنه وحول بو يوحوين بكتابك لو سعليه ووحي كتابك يرى غالي لو هذا تاسي وحوي ديتيهم معه بس وحوي المؤمنين نقول ما ينبغي إلهي حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلهي أبيك حاكم كاوي يشان وفوس وحصل تجان وح الله عليه يفتح ورسل أجمه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لما غضيت حدنا نفسه وين حرج سهلين قال لكم نغطوا وش أبيك حكم كتابك يغسل الله وين يقبلها يان غالي فيه ويسلم تسليما وإنه كان سلام وكان أصليا صدق هدان لجهين ضد من غنايا المؤمنين وحوي إيمان كود وبين مارس منافقين يكسرون بكلاهانيا هذا قال لي ما لشهر أيام إعلامنا أيام مارس ليه أنه وضعت هين لنا ومستدين يكسرين هذا ليه كتاب كان ديارنا هنا كل غنوا وانها عنهم موحدين بأن يتسليهن ولكن أين راعينا منافقين بين غنايا مرس إلهي وحير وحي كورين كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شيء لا يعلمون إنه واتبعوا وحي راعين ما تتلو الشياطين وحي شيطامضوا أي شيئين آخرين شيطامضوا وحي كشيئين على ملك سليمان بغرطويدي نبي سليمان أي كشيئين يهود وحي اسمه شكوليين بالي سابت إلهي كتتجن وحي راعين بالي بغرطويدي سليمان حياليه بادل كهاي لغا شيئين شيطامضوا كشيئين شيطامضوا أوليين وحي يتين شيطين بدل بادل والنبي الله سليمان يكتل الماميان إنه ساحر أها marka yahuuda waxa lagu yaqaanay ambiyada ilaahay inay aad ugu nisbeen jireen kabaa'ir waaweyn yahuuda maarka kufrigooda kamid ahayd ambiyada allah inay maarka ku nisbeen jireen oo ku sheegi jireen waxyaabo waaweyn oo maarka gaalnimo ay ku tilmaami jireen marka waxyaabahaas oo
كبائر النبي في الماما أيام واحد كان يجون إن كبائر فويستان بس ما دام النبي يجي بأهير كمرة هيين أنا جي محل ما ينسى يورنيا نبي يجي بهدوه راح كدعين أنا جي محل ما ينسى حد يكذب يكذب سليمان واحد يكون يبين إنه سحر سمي وساحر أها سليمان نسي إلهي إنه شيء وصلها أود إلهي في وفضل وين بإلهي في وحول سخر إمارة خلق بان وسمي ينسي وسخري وحال بري هذا الكمار سنبرها إيو مخلوقات كاس هذا لو يبال بري طبيسي والله سخري أمنيش ودونه وديني مركا بغرطويدي بلقيس ودن عرشي جيدي بواحا لو كان اللي بس وحقيا دك بالله كان لو سخري أودا سأبضان روحوي إلهي ووهو دنسنا الله حج ينسيين وقرهي هذا من فضل ربي وفضل الله ليبلوني أنه يؤمن سحامية أشكر أم أكفر بي إنا شكري إنا شكري marka leeyahay sida ahaba waxay yiraahdeen awoodiisana waxay ahayd sixir bay ahayd oo Faraantiga la haysiray oo haduu Faraantiga ka baxo waxba garaneyn waxyaabo been oo sidaas ay ka alifeen rasuulka Allah aabihi oo nabi Daawud ahana sidoo kale waxay ka alifeen been ah waxay yiraahdeen ninba wuxuu u dilay askari ahaa junuudiisa kamid ahaa dagaalka u diray si uu ugu soo dhinto wuxuuna maraadkiisu ahaa iyo hawaas inuu u haro nabiga Ilaahay waxa ku listeen taas mar dambe sawirka nabiga yiraahdeen nabi loo waxay yiraahdaan khabru caday taas waxa waxyaabo ka dhaceen ليس صحيح ونسبة مركز يهود علامات بواحد مركز قال لماذا نبي إلهي إنه مارس في المامان وحياة إلهي معصوم مارس وكعاسي يقدوري بشكل ما مثل مركز واحد راعين بالين وحي الشيطان مضوا كل شيء على نفس سليمان بغرسية سليمان وما كفر سليمان وسليمان ما قالوا إن بإلهي يرمى كفرين أو أحنا سحرين وهم سحر بيغاني إلهي وحي وما كفر سليمان مركز سحر هو كفر شرع الإسلام صحوي كبائر هو معناه ليرادو waa lagu kufrinaya qofkii lagu arko oo sameeyana xadkiisa waxa weeyaan darba sayf xadu saaxiri darba sayf waa sayf qoorta loo gooyo wala dili jiray marka darba khadaba radiyallahu anhu wuxuu qoray nimanka gobolada madaxda ka ah wuxuu wada amray inay saaxir iyo saaxirad walba ay arkaan dilaan kaas waxaan dilay ninka xadiiska wariyay qatalna salaat sawax saddex haween sixirley ama markaas soo dilay marka saaxirku waa saas wala dilaya islaamka ilaahayna wuxuu u qoray saaxirka dulinimo oo iyagoo saas wax sixiraayo waxyaabo dadka maartay aan keeni jiray sameynaya haddana waxa la yiraahdaa waa dadka ugu qaabsan nolosha oo ugu liita oo wax weeyaan ilaahay ilaahay wuxuu wala yuflihu saaxiru haytu ataa saaxirku liibaan ma yaali meeshii yimaadeen marka Suleymaan ma kufriyin wama kafara Suleymaan walakinna shayaadiina laakiin shaydaamadii kafaruu kufriyay yuallimuna an-naasa dadka barahayeen bal yabari jireen as-sihra sixirka dadka bari jireen shaydaamada dadka sixirka bari jiray oo iyaga kufriyay waxay kaloo raaceen bal yiruma unzila wixii lagu soo calal malakiin labada malag di baabila ee magaalada baabilna waa magaalo Ciraaq ku taala oo dawladnimo la haysatay waayada hore dawlad baabiliya dawladda haysatay waayada hore oo nabi Ciise ka hor iyo dawlad Ashuri iyo dawlad baabiliya thaniya laba dawlad baabiliya la oran baabil ka soo baxay jiray marka baabil waxa la labada malag oo bi baabila Haaruut wa Maaruut Haaruut iyo Maaruut leeyahay marka tafsiirkeeda laba sida laga yiraahdaa waxyaabo maartay badan oo asaabira oo sheekooyin aan kaad lahayna dad baa markaan kala soo arooriya oo Israa'iiliyaad marka tafsiirka mid wuxuu leeyahay waxa loo jeedaa wama unzila ala al-malakiin macnaha lagu soo dejin labada malag oo yahuudu sheegan in sixir lagu soo dejiyo labada malag sixir lagu soo dejiyo laakiin shaydaamadii baa yuallimuna naas sixir dadka baraya sixirka oo waxay ku barahayeen baabil meesh baabil yiraahdo kuwaas oo ahaa Haaruut iyo Maaruut kuwa dadka sixirka barayay taas marka tafsiir dad badan u fikiray laakiin ibn Jarir dabari waa radiyay tafsiirkaas oo imaam mufassirin ahaa wuxuu yiri taas waxa weeye ma istoosina hadalku wuxuu yahay ka dambe khilaafaya laakiin waxa weeye uu yiri macnaheedu waxay raaceen wixii lagu soo dejiyay labada malagna waxay ahaayeen laba malago ilaahay u soo dejiyay dadka inay kala fustaan farqiga u dhaxeeya sixirka iyo mucjizada waxa weeye arrin laga caajiso oo bini'aadamku ay keeni kareen oo khaariq caada ka baxsan oo nabiyada ilaahay ku ajiibi jiray sixirkuna waxa weeye waa wax dadka bini'aadamka karaan oo sameyn karaan marka labadaas ay qaldamay oo sixirkii aad u badnaa marka waa labada malag waxa loo sudiyay inay dadka kala baraan sixirka iyo mucjizada waxay kala yihiin inay u kala sheegaan oo yaani waaqac ahaan u kala tusaan oo indhahooda toorto ugu sameeyaan oo tusaan bay ahaayeen marka qof walbana ballanka qaadahayeen sixirkaas oo malaa'igta arko inuusan u adeegsan marka xumaan oo san isticmaalin qof arrintaas ballan laga qaadin oo arrintaas aan loo cadeyn laba bareen balina وما يعلمان من أحد بل ما يبرين قفنا حتى يقولا إلى كثير هذان إنما نحن فتنة ونو فتنة النهاية فلا تكفرها قالوا وسحر كبرنا ودرس هو ذيك تصل هاي الدليل مرتا أصابير كلها شيء إسرائيلية ولا شيء واجران أو ليهن
لو ملك ولا امتحان بأهين أو أنت يراهين بني آدم طبعا كبر عبدنا لهين حتى هدينا لكو أبورا مارتي واحد بني آدم كو أبورا أو شهوات ضمع وحيوها مركز واحد اللي هو أبوري مركز يهد وكفر سلمين أو دعان أو مارتي خلق سميين سياسة مركز إسرائيلية وهو بين أو ملايك إلهي وحش وعلى مارتي دوري ما عاصيان الله سي إلهي نوشد الله يحصون الله ما أمره مركز تفسير كاس ورجحها من جرير دوري من عيد وحوي يهود واحد في شغلهم مركز وحي اللي وصل بيجي نبي سليمان وحي الشيطان كأخيه هي النبي سليمان ما تطلع الشياطين على ملك سليمان بيكون شغلهم وكتاب في إلهي ويسكده هي وما أنزل على الملكين وحي الله ما وصل بيجي ببابل ليس بابل وهاروت يمارود أها لبدا ملك لبدا ملكنا وحي لير وما يعلمان ما يدرك من أحد قفنا حتى يقولا إلى إيرهدان إنما نحن فتنة أنه فتنة هي فلا تكفرها كفر وسحرك وكفرية السحرك على استعماله فيتعلمون وحي برنسل المركز منهما كبرتين لبضوضة ما يفرقون وحي فوك لجينيا به إساوي فوك لجينيا بين المرء قفك إيوه وزوجه هوين وسحرك قار كمدا ليرا صرف ليرا لحين قفك اللي سكبرها لبضو قفو يجوي وما هم مرأها إيوه بالي بضارين فهو كل بكرا به يعني سحرك كل بكرا من أحد منكم بكران إلا بإذن الله إلهي إذن مبوي وسحرك صحوي وسيدا أسبابها كوا كلوي قف الدبيرة قف عند هي إن إلهي قدره أو إلهي وقصته معنا مدل كره ساعركم واساس كرديرة قف عن سحرها يا إن إلهي إذن مو إلهي ما رأس قدره معنا يسير كله كما هو ذكروي مرك إلهي على يوم هنجلا من عبودتين على أخذته ويتعلمون وحي كبرنتين أو برنتين بل ما يضرهم وحي يدبها يا وسائل أولهين وسحرك واسيدا دب بوكينا يا ولا ينفع ما هو تراهين بل ولقد علموا حقيقة علموا وأجازين لما نشتراه روح الإبسده ووحى لجنه يجيه كفر ذا مارك الإبسده سوقعته وتوصلان في استقامة الله أمريكا وسحر في برته ما له إنه صلى الله في الآخرة آخرة كلهين من خلاق يعني من نصيب وح نصيب رحمة إلهي وآخرة وحكم لها حريص إلهي جنة إلهي وحكم لها الدليل غفت وحى برته ووحى استعماله ولا بيس وحى نباس لهذه ما شروا به وحي كوي السدين يعني أنفسهم نفياسهم كوي السدين لو كانوا يعلمون هذه أهان لها يعلمون كوح أبدا يعني وحي فماذا السدين الدنيا يعني دحير ويجيدوا المعلمة إسكاه يقال لماذا كدورتين آخرنا وح نصيبكم الهانيان مركع علم الآن بالغوث المام هي الجاهلين سحرك مركع إنه سيروح أول القرآن كوهشيها يعني سحرقي فرعون وكلا وفي سحرك أي سميين فلما يعني ألقوا مركع سورين بني سحروا أعيان الناس وحي سحرين تصين لهم واسترهبوهم وأنا عبت قليلين بني وجاءوا وحي لي مالين بسحر عظيم سحروين يو سحرك ونعنع يهي مدو حوية حقيقة له وقفت معها وحول بها يقفت اللي كرنا هي أمسيب النغنية يمدو حوية قفتي لا فرصة سائدة وقفت وبسيط وفلا وقفت محسوسة يمار معنا وحبو وقلدها هي فعل بصمينها هي قفتي وكوين لسر حاضر لكن قفتي حقيسي وحجها سينوين مركا إذا نوعنا يسوى الله قيدي كل واحد يوربيه معنا هو الرئيس ولو أنهم هدي يجوا بالي آمنوا الله فمين الهايين أو حد الهايين واتقوا الله سبق الهايين لما صوبة ثواب من عند الله الله يجتاعهاتي إذا خير وخير بنان الهايين لو كانوا يعلمون هدي وحكي لغان الهايين والجهل بالغوث المامية حل إرادة لا يعصي الله إلا جاهل الله وحى عاصية وجاهل باليرا وف جاهل كان حتى المعارك وقال لماذا دورنا يسوى على بينه كسبا وحق أب نفسي يسوى عليه هذا هو جاهل محايا يسوى ناس المفكرين حايا لدو آد الفكر له وقال لها إنه خسارة أبدي دورتي وولي النار فواري الدون سيركا يا آخرتي مارك باقي أهيد ودائم شاهد إنه كلا دورتي تاسو حتى هدو كلا قرون وأدون دورتي تحت وجاهل ما وجاهلين marka Allah ya sallaa illa jaahil saasa loo yiraahdo haduu xataa qof cilmi leeyahay wax kale og yahay oo gaalnimadii uu ku qancay laftigeedu waa jahliga xataa macnihiisa waxa kamid ah inuu yahay xaq iyo la raaci waayo oo qofkii xaqa aan ogeyn waa jaahil kii xaqa ogaaday oo ka tagana oo raaci waayana waa jaahil sawan marka cid Allah tacaasida waa jaahil marka loo kaano yaclamuun hadii wax ogaan lahayn bal yaa ayuha alladheena aamanuu fa Allah rumeeyo la taquluha oranina li marka rasuulka Allah leesan raacinaha oranina li وقولوا واحد رهان انظرنا نسير لها ومعناها أنا نسوء ده مركح على غير هي لفظة راعنا يهودا استعمالك في يو حمان ولا كذا واستهزاء يتوسط ولا كذا أي أوريجين راعنا طبعا مقال هذا معناها نوصل راعي إنه مقال وين معه ندقيس كلمة ده الله معنا لما رت معنا ندقيسنا وعهان كتا حمان كلنا وعهان كتا بس يو حمان تقول كذا يا رسول الله لا وكو أوريجين الأرجاس
isaguna si uu qaato maartay inay ka wadaan soo jeesona maqal marka ereyga oo dhan ba marka muuminiinta laga reebay oo yuhuud inay shabihin maadaama qowlka xun ay doorteen oo dad jaahiliin yihiin oo macaanidina qowlkaas xun inay muslimiintuna isticmaaleen oo malaynin in hadalka hadal furan yahay marka ha oranina liyo marka rasuulka Allah leesan raa'ina ha oranina waqulu waxa tirahdaan undurna nafsiri nasoo eeg wasma'u maqlabalay walil kaafiriina kufaarta waxa sunnaaday cadaabun aliim min cadaab xanuun badan bigaaladan leeyahay ma yawaddu alladhiina kafaruu mas'alaysan hayaan ba Allah yiri alladhiina kafaruu kufriyay oo min ahli alkitaabi aw kitaabka ahaa salaysan mayaan walal mushrikiina iyo mushrikiinta ahaa aan kitaabka lahayn oo mushriku al-arab ahaa mas'alaysan hayaan bal an yunzala illa min kitabi alaykum farkiina من خير وخير أو من ربكم ربي حاجة سيد ما يسأل سنهيان أو وحيان القرآن كان يهنون كان إن الله ما تعالى إله الليل وكفاركم مؤمنين وحج كرين ودوا واحد فعلهم لو تكفرون كما كفروا بإلهي واحد فعلهم بني قالوا سيدوا قالوا بان وصل إلا قالوا لهم تعالى هاي تكونون سواء كان سيد وهاتان سيد درادة ما داموا كفرين فعلهم فلا تتخذوا منهم أولياء كدجنين بإلهي وتوحى متى على سنة أيام كل كفري أو من أهل الكتاب ولا المشركين أي مشركين منا لبضوا كفاروا لكن فرق أول حي وحوي يفوان الكتاب آخرين أيام وعفرت بالبرة أيام وليه كتاب الله وعند حلني رسول الله وعند الفضري كتاب إلهي مركز المشركين تروح أيام طبعا كتاب إلهي عن هيثم والله يخير وما آتيناهم من كتب يدرسونها فرق ما أن في واحد كتابه ويأخذنا أيام وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير الذي هرسانا نذير لا مدير بل تسافر عامة بهاين أبياش بالجاهلية الجاري الجاهلية مركز قرحة كون لكن حياة كتابها يسوى أحكام يقان أو عبادون يقان أو رنها يعني إلهي وانا دورسي كتاب الله وانا سماه مركز الله وحى ليري وإن حسه يعني ومسعر إن إلهي خير لكسو جسيه والله اللهنا يختص وكقر يلا بالرحمة رحمة ما يساو عدو دونه والرحمة كان أهل بالنبينا إلهي عدو دونه يعني أدورنا إياه وإلهي محمد بودور صلى الله عليه وسلم النبي الأخير أنه إيمانك يتوفيق يراعد النبي جانه إلهي عدو دونه أدورنا إياه واختصاص إلهي أو إلهي عدو دونه رحمة كقر يليه والله اللهنا ذو الفضل العظيم ورب فضل قوين له عدو دوننا إلهي رحمة سوسينا أيام marka nabigana waxay ku xaddaayeen soo dirida waxiga la soo diray oo waxay jeclaayeen banu Israa'iil laga soo diray yahuudda ahaayeen muuminiintana hanuunka ay waafaqeen ilaahay waafajiyay ay xaddaayeen oo markii hore oran jireen anaga nabiga raaci doono markaas ay leen doonaa oran jireen marka carabti islaameen carabti marka waxay xaddaayeen waxay jeclaayeen inay nabiga ku kufriyaan oo gaalowaan bisaalan jireen إعداد وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم عبد الفتاح علي فما أغضأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان.